dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa la wadaagtay mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya baaritaano ay sheegtay inay ku samaysay weerarkii looga dilay saraakiisha ee ka dhacay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho 10 bishii February ee sanadkani. Mas'uuliyiinta waddanka Imaaraadka ayaana soo bandhigay tuhun la xiriira in xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ku lug leeyihiin weerarkaasi lagu dilay saraakiisha sarsare ee ka socotay Dubai, isla markaana ay wax ka fududeeyeen. macluumaadka ay dowladda Imaaraadku la wadaagtay mas'uuliyiinta sarsare ee Soomaaliya ayaa waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, kaasoo isagu damiin ka ahaa shakhsiga laayay saraakiisha Imaaraadka ee gudaha u soo galay xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho. dowladda Imaaraadku waxay sheegtay inay baaritaano horudhaca ku samaysay qaabkii uu dhacay weerarkaasi iyo cidda u suura gelisay askariga laayay saraakiisha Imaaraadka inuu gudaha u soo galo xerada tababarka General Gordon kana mid noqdo ciidanka ay gacanta ku haysay oo tababaraysay dowladda Imaaraadka. waxaana la ogaaday in ninkaasi uu ka soo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dabiin ka ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur, laakiin uu ahaa shakhsi ay soo dirsatay kooxda Al-Shabaab si ay ugu dhex darsato ciidanka dowladda Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma aanay helin warbaahintu macluumaad la xiriira sida ay uga falcelisay arrintaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay xogtaasi soo bandhigtay dowladda Imaaraadku oo ay sheegtay inay tuhun weyn ka qabto wasiirka gaashaandhigga iyo inuu wax ka ogaa weerarkaasi lagu laayay saraakiisha Imaaraadka. waxaase warar la soo xigtay ay sheegayaan in madaxda sare ee dowladdu ay ka soo qaadeen dowladda Imaaraadka Carabta mid wareersan oo lafcad toobin ku haysa, maadaama aanay suuragal noqon karin in wasiirka gaashaandhigga ee dalka uu ku lug leeyahay weerarkaasi waxna ka ogaa, laakiin ay macquul noqon karto in uu damiintay shakhsigaas oo aanu wax aqoon u lahayn. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wixii ka dambeeyay markii uu dhacay weerarkaasi bishii February waxay cadaadis ku saaraysay hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya inay sameeyaan baaritaano macquul ah si loo ogaado cidda fududaysay ama ku lug lahayd weerarkaasi oo loo arkayay sirqool weyn, isla markaana loo dhigay saraakiisha Imaaraadka ee ku sugnayd gudaha Soomaaliya. dhowr sargaal oo ku jiro kii ugu sarreeyay dowladda Imaaraadka Carabta ee ka joogay gudaha Soomaaliya ahaana ninkii gacanta ku hayay tababarada iyo howlaha ciidan ee Imaaraadku ka waday gudaha Soomaaliya ayaa lagu dilay halkaasi kadib markii mid ka mid ah dhalinyarada askarnimada u joogtay gudaha xerada General Gordon uu rasaas kala daalay saraakiisha Imaaraadka oo halkaasi saacado ka hor soo galay. ninkaas ayaana markii dambe isagana waxaa joogtay ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya.